maanta waa maalin weyn waa 25 bishii 8aad sanaduna waxa weeyaan 2024 waxay ku beegan tahay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay maalintii guusha iyo gooja cadde maalintaasi sanad ka hor 2023 waxay ahayd maalin taariikhiya waxaa la gaaray guul taariikhiya waxaynu maanta u dabaaldegaynaa oo ciidamadeenna la xusaynaa oo ku bogaadinaynaa guusha taariikhiga ah ee ay soo hooyeen wax weyn baad qabateen guul weyn baad soo hoyseen sannad kadib waxaannu idin leennahay waad mahadsantihiin ciidankayagow sannad kadib waxaannu idin leennahay guushii aad soo hoyseen ee adduunka daafihiisa oo dhan gaadhay inaannu idinku bogaadinno idinka mahadnaqno idinkula dabaaldegno baannu idinku nimi halgan dheer oo 8 bilood soconayey oo dhibaato fara badan shacabkeenna loogu geystay baad soo afjarteen waxaad ku soo afjarteen dagaal qorshaysan oo saacada qaatay cadownimadiisu ay aad u daran tahay laakiin taag daranoo awood jilicsan baynu ishaynay waxaa taa markhaati u ah wakhtigii koobnaa iyo saacadihii xadidnaa ee cadowgaa lagu soo afjaray ee ciidamadoodii laga dhigay mid la qabto iyo mid dhinta hubkoodii oo dhanna lagala hadhay waxaan ka markhaati kacayaa geesinimadiinnii xaddhaafka ahayd ee aad ugu daadateen goobtii gooja cadde la odhan jiray cadowgeenna waxaad taariikhdu ka markhaati kici doontaa inaad tihiin geesiyaal naftood hurayaal ah oo dadkan iyo dalkan taariikh weyn u soo hooyey haddii aan maanta oo kale laydin xusin oo aan laydiin iman oo aan laydiin dabbaaldegin oo guushii aad gaadheen aan dadkiinnu idinka mahadniqin abaalka dhac weyn baa ku jiri lahaa abaalkiinna ma gudi karayno waxaannuse mar kasta ku celcelinaynaa geesiyaashii soo halgamow guulaysta 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 ciidanka halkan fadhiya ee aynu maanta joogno difaacoodii hore waa ciidamadii xaqudirirka ahaa SSC ee gaadhay guusha taariikhiga ah waxay u taagan yihiin oo weli u heellan yihiin inay cadowga ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba duulaanka ku ah gaar ahaan reer SSC duulaanka ku ah inay dhabarka ka jabiyaan bay diyaar u yihiin u heellan yihiin ciidankeennu sannad ka hor iyo maanta wuxuu awood badan yahay maanta waxa uu tayo roon yahay maanta waxa uu tiro badan yahay maanta waxaa maanta barbar taagan ummadda Soomaaliyeed ee midnimada jecel dhammaantood waxa aynu difaacayno waa dalkeenna iyo dadkeenna inaan dhibaato dambe loo geysan iyo midnimada iyo wadajirka qaranka Soomaaliyeed aynu difaacaynaa sidaa daraaddeed waxaad ogaataan oo aad maanka ku haysaan inaad ummaddii Soomaaliyeed oo dhan matelaysaan inay garabkiinna taagan tahay idinkuna taageersan tahay halgankaa midnimo doonka ah ee aad u soo tafaxaydateen cadowga aad is haysaan ee idin hor fadhiya ha dhegaysanina warka ay ku hadlayaan shalay maantay ka itaal daran yihiin shalay maantay ka itaal daran yihiin wax u soo kordhay ma jiraan wax ka soo maqani ma jiraan wax laga wadaa ma jiraan saynu shalayto difaaca nafteenna u difaacaynay baynu maantana nafteenna u difaacaynaa
ciidamada SSC xaquudirirka ah waxaan leeyahay halganka aad ku jirtaan waa barakoobaya rag iyo dumar taariikhda xusi doonta qof kastoo idinka mid ah halganka ayaanu dheeliin yaan galdaloolo laga helin innagu duulaan kuma ahin dhulkoodana ku doonan mayno waxaanse ilaahay uga markhaati dhigaynaa hadday duulaan nagu soo qaadaan in aynu sidii hore si la mida u difaaci doonno dhabarjab ayaan ka soo waaqsanna u gaadhsiin doonnaynu waa been waxaa lala wareegayaa dagaal baynu ka dhergaynaa bay yidhaahdeen baahi uma qabaan dagaal hadday dagaal wax ku tarayaan waa soo arkeen hadday guuldarro kala doonayaanna soo dhowaadaan leennahay waxaa idinka soo horreeya geesiyaashii shalayto idin burburiyey ee hubka dhigista idinku sameeyey ee idin qaawiyey baa idinka soo horreeya ragga halkan taagan iyo hablaha kani waa kuwii maamulka goondhigoosadka ah qaawiyey ee go'ay ka qaaday ee ummadda soomaaliyeed iyo caalamka oo dhan tusay inay yihiin cadow soomaali dhex jooga waad og tihiin tan iyo guuldarradii aad geysateen kadib marba fadeexad hor leh iyo ceeb aan loo fadhiin baa ka soo yeedhaysa degaankooda waxaa idinkaa sababay idinkaa kallifay waxaad diyaar u noqotaan ama aynu diyaar u nahay inay mar kale hadday soo hujuumaan degaankeenna tii mid la mida la kulmi doonaan halkan waxaan uga mahadnaqayaa saraakiil xigeennadii iyo ciidankii guushaa gaadhay kuwii SSC khaatumo kuwii puntland kuwii hiil walaal iyo dhammaan intii guusha ka qayb qaadatay baan u mahadnaqayaa dhinacayga waxaa taagan madaxweyne axmed cilmi cismaan axmed karaash oo ninna aan loo sheegayn dawrkii iyo kaalintii uu ka qaatay halgankii guulaystay waxaan odhan karnaa haddii kaalinkaa uu buuxiyey inagu bannaanaan lahaa guusheenna qabyaa geli lahayd laakiin xigmadda ilaahay baa waxay ku durarsatay inay axmed iyo halgamayaa kale ilaahay u diyaariyo halganka inay hormuud ka noqdaan waxaan leennahay axmed cilmi cismaan madaxweyne axmed waad mahadsan tahay dawrkii aad ku lahayd halgankii guulaystay dhinacayga bidix waxaa taagan jenaraal cabdishukri waxa weeye habeenkii kowda habeennimo saqbarhka la qaadanaya go'aankii dagaalka raggii dagaalkan go'aamiyey ee hoggaamiyey ee guushan soo hoyey uu ka mid ahaa waxaan leeyahay isaga iyo saraakiishii kale ee dagaalkan hoggaamisay ee ciidankan guusha gaadhsiisay waad mahadsan tihiin waad arkaysaan halkan waxaa taagan xildhibaannadii SSC oo markii horena ahaa guddigii 3 ahaa oo ugu horreeyo shiikh aadan weli halgan guulaysta bay hor qaadeen waxaan leennahay waad mahadsan tihiin dhammaan xubnihii 3 ahaa ee guushan taariikhiga ah ummaddan ku soo simay waxaan leennahay abaalkiin ha jiro waxaan ballan qaadaynaa cadowgaas inaynu hor taagnaanno soomaali ka qabanno iska qabanno oo aynu u diyaargarowno in ayan mar kale helin fursad gaadma ah oo ay dalkeenna iyo dadkeenna ku soo galaan intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacantay ilaahay ha u boogadhayo intii ku naafowday ilaahay cawil khayr qaba ha siiyo dadkay ka dhinteen guud ahaan qoysaskii iyo reer SSCna waxaan leennahay cawil khayr qaba iyo sabir iimaan waxaan u ballan qaadaynaa inta dhimatay iyo inta naafowday in qadiyaddii ay u dhinteen ee u naafoobeen ee u dhaawacmeen aan laga leexan doonin dawladnimaday doonayeen ay dhisantay taabe geli doonto oo ay ku diirsan doonaan jiilasha inaga dambeeya waa ballan aannu u qaadnay ciidamadeenna
kuwii dhintay iyo kuwii naafoobay iyo kuwa noolba waa ballan aannu u qaadayno shacabweynaha SSC Khaatumo iyo walaalaheen harti oo dhanba waa ballan aan u qaadayno Soomaalida midnimada jecel ee midnimada u taagan ballan aan u qaadayno weeye cadowgu waa cadow diir kasta ha yeesho midab kastana ha lahaado muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu dhowreed magasataa dhaama waxba yaan la odhan waa Soomaali waxba yaan la isku beer laxawsan ehel baynu nahay muuse iyo cawaankiisu waa cadow cadowna waa cadow cadowna waa la iska qabtaa shalayto markii aad guulaysateen waxaad u hoggaansateen awaamirtii laydin siiyey ee ahayd inaydan degaankeenna dhaafin waxba laguma qaadan diriirtaa iyo burburka aannu ka baajiray degaannadaas waxba laguma qaadan waxaannu u sheegaynaa dadkan aannu jaarka nahay ninkaa cadowga ah inayan taladiisa dhegaysan inayan ku guurin uma furi doono yaannu idiin rarin baannu leennahay muuse idin furi ma doono yaannu haddar idiin rarin baan leennahay muusena hadalkiisa ku dheeraan maayo qolyahaanu jaarka nahayba waxaa loogu hees jiray in kastoo malkada xiisiyo maydh looga soo dego dharka kiisa midabliyo maxamuudi loo xidho illee muuse uu iska muusihiisii ninkaasu waa un talaxumaalihi aynu ogayn weeye cidda dhegaysanaysa ee maanta tale ka sugaysaa ka liidata waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba annagu nabad baannu u taagannahay nabad baannu doonaynaa dawladnimaannu doonaynaa horumar baannu doonaynaa derisnimo wanaag baannu doonaynaa intaasina maaha in aannu baryayno shan farood iyo calaacal baannu ku goosanaynaa nabadda cidna laga baryi maayo cidna marti loogama aha haddii shalay laydin afiyayey maanta idin afbiyi mayne waxaad ka heshaan baad leedihiina colaadda qaata ugu dambayn bacad baynu taagannahay goor kuula baynu taagannahay maanta waa inoo maalin guuleed waa maalin guuleed waa maalin guuleed waa maalintii aad guulaysateen waa maalintii ciidamadeennu guulaysteen waa maalintii shacabkeennu guulaysteen waa maalintii ummadda Soomaaliyeed ay guulaysatay gebi ahaanba waa maalintii ilaahayna guuleeyey ilaahay waxaynu ka baryaynaa guul waarta iyo nabadgelyo aad baad mahadsantihiin